Sida aan wada ognahay waayadan dambe waad ka dheragtay mowduuca ku saabsan abaaro ka dhacay Yurub, wadamada Jarmalka, Talyaaniga, Belgium, France, Greek, Poland iyo wadamada ugu badan oo ay ka mid yihiin Czech Republic iyo Slovakia, Giriiga iyo wadamo kale oo Georgia iyo Romania ka mid yihiin ayaa abaar la qalalay. Tani waa madfac ka haray dagaalkii labaad ee adduunka oo laga helay shoorka ama xeebta uu ka soo caariyay webiga ugu dheer Talyaaniga ee Po hareeraha magaalada Veneza ee koonfur-bari waddanka Talyaaniga. Webigan oo lafdhabar u ahaa ganacsatada beeraleyda Talyaaniga ee beerta khudaarta yaryar iyo miraha ay ka mid yihiin strawberry-ga, tufaaxa, saytuunka iyo cambe yaryarka loo dhoofiyo badi wadamada Yurub ayaa haatan dhabarjab ku dhacay. Sidoo kalena ganacsatada bariisku wax ma beerin ilaa horaantii 2021. Yeelkadeeda qalalidda webiyada waxa ay ka mid tahay calaamadaha aakhiro zamaanka. Webiga Furaat ee Ciraaq ayaa qalalay, waxaana hoostiisa laga arkay magaalooyin qadiimi ah iyo xadaaradihii ummadihii hore. Sidoo kalena dahab banaanka yaala ayaa la arkay oo buuraha hoostooda iyo magaalooyinka qadiimka ee webiga kasoo hoos baxay laga arkay. Dadka ahlul cilmiga ama dadka waxbaara way rumaysan yihiin mas'aladan, waana la isku wada raacsan yahay. Hase yeeshee qaar jaahiliina ayaa igula doodi doona maxaa ku dhacay ninkan, muxuu ka wadaa. Haddaba ila dhegeyso xadiis laga wariyay suubanaheennii wacnaa calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya can Abi Hurayra radiyallahu ta'ala canhu anna rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam qaala laa taquumu as-saacatu xataa yaxsara al-Furaat من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون الذي أنجو. ومعنى هذا يهي أبو هريرة وحاو كوري النبي عليه الصلاة والسلام إني ساعد قيامة دعدون إلا إنتي وبيغ فرات وقللو وهستي سنة لغهلو جبل أما بور ذهب تاسو دادكو اسكو دقالي دونان. boqolkii qof ee ka mid ahna waxaa laga dili doonaa 99 midka soo harana wuxuu dhihi doonaa aniga ayaa xaq u leh inaan noqdo midka ku guuleysta dahabka keligii. Xilligan xagaaga halka Yurub webiyadu qalaleen, maraakiibtuna la yihiin meelo ay ku socdaan, ka waran saxaraha ku yaala jasiiratul carab ayaa daadku qulqulaya, waxaana ka da'aya roobab baraf wata baadiyaha Sacuudiga, Imaaraadka, Cumaan, Jordan, Kuwait iyo Qatar. tanina sidoo kale waxay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. iyadana sidoo kale waxaa noo sheegay xadiis daliil ah oo laga wariyay suubanaha rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam qaal la taqumu as-saa'atu hatta ta'uuda ardu al-'arab murujan wa anhaara. Sahih Muslim. dhammaan sida axaadiistan ku cad waxaad u jeedaa in calaamadihii qiyaamaadku soo dhawaadeen. waxyaabahan oo dhanna waa la arkay. abaarta iyo kulaylka ka dhacayna webiyada iyo dooxooyinka qalalay ee Yurub iyo saxaraha jasiiratul carab oo roob baraf leh ka da'ay, sidoo kalena webiyaal ay qulqulayaan, iyo sidoo kale webigii Furaat oo qalalay lagana soo helayo kaydad dahab ah iyo dhagxaan dahab ah. ogow, webiga Furaat waa barta uu ka dhici doono dagaalka ugu dambeeya ee caalamka lagu kala qaybsamayo gaalo iyo muslim. Allahumma sallim. mowduucan wuxuu la yaabi ama ka yahay dhammaan warbaahinta waaweyn ee caalamka carabta marka laga reebo Soomaaliya iyo Djibouti oo awal bays ka ahaa ka daba tuur. la soco muuqaaladeena xiga. mahadsanid.